abtiris marka la yiraahdo abtiris la ilaaliyo waxa ugu sharaf badnaa abtiriska nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la isku raacsan yahay 20 oday in la garanayo si sax loo garanayo laakiin cadnaan wixii ka dambeeya ilaa laga soo gaaray nabi ibraahim waa iska wax la hubaay kuma jiraan waa shakiya ka buuxa xaaji xaawo caanaha sacuudiya ii dhiibaan dhamme naftu way kabayaan dheeldheel ii dhiibaan dhamme uma baahnid dheef kale iskaba dhaaf ii dhiibaan dhamme caanaha sacuudiya waa dhagdhag caanaha sacuudiya waa dhagdhag asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal soo dhowaada idil ahaantiin meel walba oo aad joogtaan magacayga waa sharmaake abuukar waxaan idinkala hadlayaa hubaal t v waxaadna ku soo dhowaataan bodcastiga waayo arag oo aad ku xiran tihiin oo aan idinkaga mahad celinayo sida qiimaha badan ee aad noo dhiirigelinaysaan sida fikrada noogu soo direysaan waxaan maanta u mahad celinayaa oo ila jooga qoraa macalin samafale ganacsade abwaan cabdulaahi sujuud cabdulaahi cabdi faarax soo dhowow ku soo dhowow waayo arag podcast asalaamu allahu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sharmaarka waan dhowahay adiga iyo asxaabtaada kugu xiran aad baa idin salaamaya waa kaa qaadnay soo dhowow waxaan u mahad celinayaa sidoo kale walaalkay yaxye mukhtaar cilmi oo kaamirooyinka inoo hagayo bodcastiga inoo duubayo adinkana waqtigiina idinkaga mahad celinayaa maanta saa hore idinkugu ballan qaadi jiray mar waliba bodcastigan aad daawataan waxaad faa'iidi doontaan wax maskaxdiina ku hari doona waxaana mar walba idin keeni doonaa dad akhbaar fiican haya oo aad wax ka ziyaadsanaysaan cabdulaahi intaan bodcastiga aanan furin qof waliba oo marti ah waxaan weydiiyaa oo aan idan uga qaataa in aan weydiin karo su-aal waliba iyo inuusan raalli ka ahayn inaan weydiiyo su-aalo gaar marka inta bodcastigan uu socdo ma waxaa jira su-aalo aadan ogolayn inaan ku weydiiyo ma jiraan wax haddan aan diidanahay oo waa mahadsantaha wax walba ku weydiin karaa waaya dadka inta markay yimaadaan qaarkoodna taariikhdooda anaa soo kooba kuwana hal daqiiqaa siiya marka dadka taariikhdooda aan soo koobi doono oo daawadayaasha aan u gudbin doonaa ka mid tahay haddii aan lacalla wax khaldani i qabo magacaaga saxda ah cabdulaahi cabdi faarax lagu yirahda sooma aabbahaana neystiisna sujuud aa la yirahdaa maasha allah waxaa ku dhalatay dhuusamareeb baadiyaheeda 12 sano adoo jira waxaa tagtay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ma jirin iskuul koowaad ilaa iyo dugsi sare oo aad dhigatay waxaa ahayd nin inta badan waxbarashadiisa ay ahayd soomaalida waxay yidhahda xirow dhinacaasna xerow baan ka ahaa oo waxaa la yidhaha xilaqul masaajid ayaan dhinac ka ahaa dhinaca kale waxbarashadeyda kaleeto waxay ahayd googoos oo may jirin mid xiriirsan oo sidaas aad sheegtay akademi kale u xiriirsan ma aysan ahayn markaasaan joogay laakiin barayfaad iskuulla googoos ah midkaan ka tag midkaan tag saas un bay ahayd galaaskaan tag galaaskaan kaa kala go'o waayahay codkana wax yar kor igu qaad waayahay dugsiga qur-aanka waxaa ku dhammaystay dhuusamareeb ha meel magaalada agteeda ah maasha allah waan gudbayaa 12 jir adoo ahaa muqdisho imaatay waxbarashadaada hadda waa heer jaamacadeed waxaana ka baxday jaamacad islaami ah oo ku taala faransiiska wasxanaasma aad iyo aad qoraa waa tahay abwaanaa tahay gabaye oo waxaan arkay 70 ka badan oo adi aad samaysay waxaa qortay dhowr buugga islaamka iyo xagjirnimada oo aan akhriyey adaa qoray buug kale waxaa jiray safarkii nabadda iyo suugaantii cabdulaahi sujuud la dhahayo oo gabayada aan ku arkay badankood
waxaa jira buuggan gacanta aan ku hayo ee 12 qarni taariikhda islaamka geeska afrika kanna adaa qore waayahay ilaahay waa kuu roon yahay waxaa tahay qof iskii u shaqaysta waxaana ka soo shaqaysay oo alla shaqaysay wasaaradda arrimaha dibadda Finland mar UN-kana mar waa la shaqaysay waayahay ilaahay wuu kuu roon yahay inta badan waxaa ka shaqayn jirtay ilaa haddana aad ka shaqaysaa mashruuca nabadda nin nabadeedaa tahay waayahay waxaa inta badan dadka ay kuga xasuustaan dhexdhexaadintii sheekh shariif iyo xasan daahir aweys masaxana wasaxantaha nacam waqti badan ay gashay agalka filin oo adi lagaa sameeyeyna waa jira oo la dhaho uhdan miyahan rawha nabadii halkanin oo Finland ay ka sameeyeen golihii dhexe ee asmarana waa ku jirta dadkii telefishinka qaranka Soomaaliya dib u howlgeliyay Finland inta ka kaxay xagga geena waa ku jirta projectigaas oo dhanba founderkiisa anigoo ahaaba asaasigiisi waayahay maxaa ka tagay intaas waa soomahan waa sii socon karaa marka buuggan 12 qarni taariikhda islaamka geeska afrika waa inta badan maanta su'aaleena waxa uu ka imaan doonaa buuggan hadduu ilaahay yiraahdo qof waliba podcastigayga marti ku noqda waxaan weydiiyaa dhowr su'aalo boobsiis ah culimada Soomaaliyeed midkee inta badan dhagaysataa Sheekh Cabdixayi iyo Sheekh Mustafa waaw waayahay cafiska iyo aarsiga midkee jeceshaa cafiska wanaagsan sida ilaahay sheegay waayahay ku noolaashaha miyiga iyo magaalada midkee jeceshaa miyiga ayaan jecelahay ma waxaa ka mid tahay dadka jecel hilibka mise qudaarta hilibka waayahay shaaha iyo kafeyga kafee mabacababa ahaanba waayahay muusigada iyo kabanka waayahay midabka caddaanka iyo midabka madowga midabka jecesha safarka cirka iyo midka badda midka jecesha badda waa ka cabsadaa biyaha ka baqdaa safarka cirka ku reenta dadka qof waliba qof buu wax ku qarsadaa sirta ku qarsiga ragga iyo dumarka inaa eed gala ma rabo laakiin dadku way kala duwan yihiin labada noocba way ku jiraan dad wanaagsan oo sir lagu aamini karo waayahay xayawaanada xayawaanka ugu jecesha geela xirfadaha lagu shaqaysto xirfada ganacsiga kubadda cagta kooxdee taageertaa waa jecesha adduunyada hal qof xitaa banooni dheela ma aqaan magaciis ma jiro gebi ahaanba waayahay waa mahadsantahay su-aalihii meeshaasaan ku keenaya waan sii soconayaa waxaa qortay 3 buug sidaan hore u sheegay marka hore buwaagtan horaan kusoo sheegay adiga marka maxay kala yihiin 3 buug adoo soo koobaya sharmarkow 3 buug waxay kala yihiin qof walba adduunyadan joogaa wuxuu jecel yahay waxyaabo inuu soo kasal gaaraa jira aniga markii aan arkay Soomaaliya iyo diinteedii sida la iskugu mushkiladeeyay dadkii fahamkii looga lumiyay loo dhibaateeyay waxaan mar isiri allaya dadka mar wax u iftiimiya waxaanan ka qoray barnaamijkaas buugga la yiraahdo islaamka iyo xagjirnimada islaamku muxuu ka qabaa xagjirnimada buuggaas saasa ugu bixisay buugga kaleeto oo safarkii nabadda iyo suugaanta waxaa ugu bixiyey dabcan safarka nabadda waxaan ka hadlaynay waa waagii ciidamada Etoobiyaanku ay Muqdisho qabsadeen oo maxkamadihii ay ka carareen meesha oo asmara la iskugu tegey haddana gruubka asmara kala jabay unbaa waxaa ii cuntami weysay inaan labada garab mid raaco waxaan doorbiday inaan isku soo jiida labadooda oo nabadooda ka shaqeeyo marka safarka nabadda oo buugaas ka hadlaya waa safarkaas oo noocaas oo ahaa marka safarkaas oo u dhaxeeyey ama nabadda intaas u dhaxaysay Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo Sheekh Shariif oo madaxweyne ahaa kabacdina dowladda Finland
ay runtii back up fiican ugu siisay wasaaradda arrimaha dibadda iyo kadib UN-ka haddana arrintii nala sii ballaarato sheekh xasan markii uu iyo ay isku biireen kooxda al-shabaab adiga hawl aad u ballaaran ay ahayd oo dabcan markii dambena guul marka aan ku dhownahay maraykanka anugu istaagay oo barnaamijka naga fashilay marka buuggaas qayb ahaan nabadda uu ka hadlayaa waa nabaddaas qaybta kale suugaanta iyaduna waa suugaan aniga aan lahaa oo meesha aan ku soo bandhigayay oo dhammaanteed wacyigelin ah buuggaana aadina sharmarkow buuggan oo hadda ah buugaagta ugu dambeeyey isleeyahay hal midaa ka dambayn doona aan isleeyahay marka aan fiiriyo wax maskaxdeyda aan jecelahay buuggan waxaa igu bixiyay asaga inaan qoro 12 qarni maxaa meeshan ka dhici jiray geeska afrika waxaan markaan arkay dad badan oo mas-uuliyiin ah oo soomaaliyeed oo diib la aaminsan dadkana u sheegaya oo dhahaya etoobiyaanka walaalaana anigana nimankaa saaxiiba ma nihin waxaan baaray marka taariikhda walaalnimada la sheegaya ma runbaa horta mase waa been wax dadka loo sheegaya ma jiraan meeshaan marka waxaan isku dayay marka inaan taariikhda dhabta ah ee meeshaan ka jiri jirtay aan baaro arrintaa marka waxay ila gashay soomaaliduba taariikhdoodu inay shalay tahay oo ayba 300 oo sano 400 oo sano ay tahay marka oo magaca Soomaaliba oo haddaba ahaa marka waxaan door biday marka inaan raadiyo intaan magaca Soomaalihi la helinba Soomaalidu waa jirtay maxaa meesha ku haysto ka dhici jiray marka ID-ga Soomaaliduna islaamku ahaa marka buuggan inuu taariikhda fog ila aado taasaa keentay waayahay su-aalihiisaa aadaynaa marka oo ku mahad celinaya si ay ugu soo koobtay goor maadaama 12 qarni taariikhda islaamka geeska afrika buugga aan gacanta ku hayno su-aalahan inta badan ay ka imaanayaan goormaa ayuu islaamka soo gaaray horta geeska afrika sharmarkow soomaalida taariikh ay leedahay oo iyadu ay qoratay horta maba jiro ciddii wax ka qortana cid heshiisku ma ahan taariikh inaysa yeelanna waxaasa keenaysa ama ilbaxnimadaaba dee aba ku cusub taariikhda islaamka ama soomaalida marka islaamku soo gaara marka laga hadlayo waxaan aadaynaa ummado kale waxay ka qoreen haddii aan toos u aadno islaamka horta daliilka aan haysano ma ahan aayad iyo xadiis ma ahan inuu soomaaliya waqtiga islaamku soo gaaray waxaan ku caddaynaynaa aayad quraan iyo xadiis maahan ee waa taariikh la raad guray waaye oo dad aan soomaali ahayn ay qoreen wey daliilka ugu dhow buugga la yiraahdo safaxaatu min taariikhi soomaal oo uu leeyahay nin la yidhahdo maxamed fariid oo taariikhda soomaalida ka hadla ee geeska afrika bogga 7 ee buuggaasi wuxuu ku qorayaa in sanadkii hijriga ee 101 taariikhda hijriga markay ahayd magaalada muqdisho in laga helay qabri la qoday oo meel dabcan la qodaya laga helay gabar la yiraahdo Faadumo Cabdisamad Yacquub meeshaas laga helay harag ay ku qoran tahay bismillaahir rahmaanir rahiim ay ku qoran tahay oo gabadhaas ama la duugnaa ama meel guri ku dumay ama sibaa un loo helay gabadha magacaas iyo sidaas baa loo helay waa taariikhdu markay ahayd 101 sano oo hijriga islaamku hijriga oo intaa uu jiray taas waxyaabaha daliilka laga dhiga karay ku jirtaa marka la fiiriyo marka gabadha iyo aabaheed iyo awowgeed oo magac muslim meesha ka muuqdo waxaa ku soo baxaysa 50 sano ama 60 sano in dib loo noqon karo oo islaamku dee uu soo gaaray meeshan intiiba uusan magaalada madiinaba aanu gaarin waxyaabaha la daliishan kara waxaa ka mid ah in asxaabtii intii taariikhda islaamkuba aysa bilaaban maka ka soo qaxay ay imaadeen halkan geeska afrika ay imaadeen dadku waxay isku qasaan qaar baa waxay yidhaahdaan asxaabtii waxay tageen boqorkii xabashiday u tageen
boqorka xabashiduna geeska afrika oo dhinacan soomaalida ma joogin ee meel aksum la yiraahdo oo boqortooyadeeda oo aksumna waxay ku taallaa badda cas iyo waxay u dhaxaysaa webiga blue nile halkaa bay ku taallaa meel yar ciriiriya ku taallaa waana boqortooyada dhan oo xabashidoo la sheegi jirana juqraafi yar bay ahayd markaan isballaarintan dambe waqti dambe imaanaysaa marka dad baa waxay yidhaahdaan 1,000 mayl ama 1,000 kilomitir ayaa u dhexeeya aksum iyo meeshaan muqdisho oo kaleeto marka islaamku haddiiba ma imaan karin marka waxaysan fahamsanayn addis ababa iyo aksumta eriyadeedaba in soomaali joogi jirta oo dhul Soomaali jamca meesha la yiraahdo Asmara iyo dhinacan Eritrea iyo Djibouti iyo dhinacan oo dhanba inay dhul Soomaaliyeed ahayd oo asxaabtu ay halkan yimaadeen haddana waxaa kaloo sii xoojinaya asxaabtu mar dambe inay laabtaan rabeen oo baddu ku kacday dhinacan berbere iyo saylac iyo meelahan unbay iska degeen intay badda aadi waayeen marka dalayladaas marka la fiiriyo waxaa noo soo baxaysa in islaamku oo waqti hore uu soo gaaro dhulka Soomaalida aad u mahadsan tahay waxaan rabaa Cabdullaahi taariikhda horta muhiimad gaar ah ma leedahay sharmarkow taariikhda muhiimad weyn bay leedahay cilmi dhan oo la barto waayo haddaan ka fiirino dhinaca bini'aadamka muhiimad weyn bay leedahay haddii aan ka fiirino dhinaca anagu aan badanaa reference ahaan u aadnay islaamka taariikhdu wax weyn bay gashaa haddii aan ka soo qaadano waxyaabaha midba hal tusaale aan ka soo qaadano haddaan ka soo qaadano taariikhda dadka aan taariikhda lahayn qofku haddii aanu taariikhdiisa garanaynin meel uu u socdo ma garanayo nin aan garanayn meel uu ka yimid cidou ku daysado fishin male aragti male tunnelkan gadaashiisana light ama iftiin kama arka meesha dambe waxyaabaha dadka black americanka mushkiladda haysata waxaa ka mid ah identity crisis ku dhacay meel ay ka yimaadeen dhibaatada caddaanku u geysto ugu weyn waa in uu tirtiray dadkaasi waxay ahaan jireen oo aysan garanayn meel ay abtiriskoodu ay aadaan annagu hadda tusaale ahaan oo kaleeto ninka siyaasiga ah ninka wariyaha ah ninka authorka ama buugaagta qora canugiisu waa ku daydaa wixii aabbihii samay jiray in uu sameeyo isu dayaa haddii aabbihii samafala ahaa canugaasi dhinacaasu u badanayaa laakiin imagine haddii inta la qaado meel lagu tuuro jihe uu u dhaqaaqo iyo cid role modelba canugu ma yeelanayo marka qofku inuu taariikhdiisa yaqaanaahi aaday muhiim u tahay muxuu ahaa jiray aabbahaa ma boqor buu ahaa jiray ma madaxweynuu ahaa jiray wax badanay canuga ka saacidaa ma dhakhtar buu ahaa jiray wax uu ku faano yacni qofkii haystaa ma garanayee qofkii ay ka maqan tahay ayaa badanaa aan ataa fahma dhinaca markaan ka fiirino islaamka muhiimadda uu leeyahay taariikhda cilmi dhan oo waxaa jira nusuusta diiniga xitaa wax kale iska dhaaf xalaashii iyo xaaraamtii iyo axkaamtii iyo shareecadii taariikh la'aan lama kaxayn karayo jiha ay u dhaqaaqdo ma garanayso oo tusaale ahaan haddii waxaa jira wax la yidhaahdo marka laga hadlayo naskhiga aayadda xadiid nasakhay aayad nasakday aayada xadiid nasakday xadiida aayad nasakday inkastoo khilaaf uu jiro inay suuragal tahay waxyaabaha lagu xaqiijiyo waxaa ka mid in taariikh la yaqaano haddii tusaale yar aan ku daro niman yuhuud ah ayaa beri waxay yidhaahdeen nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam khaybar meesha la yidhaahdo wuxuuna dadkii joogay markuu qabsaday wixii jizyada la dhihi jiray u ka dhaaf marka waxaa la yidhi dad baa arrintii ka dhacdhacday waxay markhaatiyaal u qabsadeen laba asxaabi ayay markhaati u qabsadeen oo waxay yidhaahdeen sacad binu mucaada iyo mucaawiya markhaati nooga ah inay arrintaasi dhacday taariikhdii markii la baaray waxaaba la ogaaday mucaawiyana inuu muddo kadib muslimay
sacad binu mucaadana ouba dhintayba khaybar ka horba waxaa lagu soo saaray taariikh haddii aan la heli lahayn axkaam baa lagu dhisi lahaa waxbaa ka ratibmi lahaa qur-aanka markaad fiiriso muhiimadda taariikhda uu siinayo aaday u weyn tahay hadda waqti baa uma hayno aan uga faalan waayahay waa soconaynaa waxaa aadaynaa su-aalaheena gaarka ah cabdulaahi ma la hubaa halka soomaali asal ahaan ay ka timid waa su-aal wanaagsan sharmaarke taas laba aan u kala qaadno soomaali aase soomaali iyo qabiilada aan u kala qaadno haddayse haddii laba su-aalood ku ahayn waa ii ahayd laakiin isku keedar hadda soomaalida cunsurka ama takwiinkan ama unitigan soomaalidu sida uu ku samaysmay anigu taariikhda aan baaray oo intaas ah oo buuggaa laga heli kara referensiga kitaabada ay ku qoranta buugay ku qoran tahay buugaagta aan baaray cunsurka soomaaligu sida uu u samaysmay meel ay ku qoran tahay waa sidaana ku hormariyey waa taariikh ummada ilaahay ay noo qoreene midaan annagu leenahay oo aan annagu qorannay ma ahan soomaalida waxaa la yidhaahdaa waxay ka soo ummadahan oo ummad baahsan ay ahaayeen waxay xukumi jireen etoobiya inta badan oo magaaladan adis ababa meesha ay ku taalo waxaa ku taalla boqortooyo yar oo soomaalidu leedahay oo shawaa la yidhaahdo halkaa ku taalay ninka la yidhaahdo ibnulbatuuda oo taariikhyahan ah wuxuu leeyahay waxaa jirtay boqortooyo soomaalidu leedahay oo kilwa ama kulwa la dhihi jiray oo tanzaniya ku taalay marka waxay ahayd ummad aad u ballaaran oo dabcan dee magacu markaan dambe u baxayaa mooyaane laakiin dadkan uu soomaalida hadda la yidhaahdo dad ummad ballaaran marka waxay yidhaahdaan waxay ka soo guureen dhul buuraley la yidhaahdo oo ku yaala meeshan aksum ay boqortooyada agteeda oo ama adis ababa iyo waxay meel u dhaxaysa adis ababa iyo webiga nile blue nileka iyo dhulka hadda eritrea loo yaqaano dhexdooda waxay ahaa jireen ummado guurguura oo isdila oo qaxa oo qolaba inta qolo soo kordegta sii cararta marka takwiinkan sida kabacdii marka waxaa dhacay ummadihii ay ku dhex ay ka mid ahayd waqti dhexe unbay kala soocmeen oo tusaale ahaan oo kaleeto waxaa jiri jiray dad geeska ku wada noolaa oo la dhihi jiray saamiyiin iyo xaamiyiin aniga magacaasi meesha uu ka soo jeedo iyo sida uu ku yimid laba wiiloo nebi nuux dhalay baa jira oo xaam iyo saam la dhihi jiray marka taariikhdaas anugu ma hubo magacaan meesha uu ku abtirsanayo soomaalida marka takwiinkeeda waxay ka kooban yihiin anigu inta aan ku qanacon soo aqriyay dad cumaan ka yimid oo carab ah dad jasiiraddan carabta ka yimid oo dee qaarkood magacyadoodaba la yaqaano boqortooyooyinkan wax ka aas-aaso magaaladan marka la yidhaahdo carabaa dhiseenoo mar muqdisho boqortooyo ku taalay ayaga aan maaragtay madax ka ahaayo dad carbeed oo diintana noo keenay waxaan diinta noo soo raacay oo dhaqamo xunxuna carabtu lahayd oo diinta noo soo raacdo hadda qabyaaladu ka mid tahay oo kaleeto oo ku soo dhex dhuuntay dhaqanka soomaalidu dumarka ay ula dhaqanto oo kaleeto xagguu nooga soo dusay asagana diintou noo soo raacay dadka diinta noo keenay ayaa dhaqan ahaan u watay marka wixii wax xun iyo wax fiicanba way noola yimaadeen marka soomaalidu ummad weligee jiri jirtay magaca ama ha lahaadeen ama yaysa lahaan oo soomaali hadda ah ma jirin laakiin waa ummada isu tega ummadan kuwa la yidhaahdo sinjiyiin ama zanji oo dhinacan kenya jiray iyo eritreyaanka iyo etoobiyaanka iyo qoladan hadda dadka luqadaha cilmiga luqadaha baare ay yidhaahdaan soomaalida ay bahal luqadeed isku yihiinoo koshitig isku yihiin oo oromada iyo dadkan kaleeto dhinacan jira anfarta iyo waxaan
waa ummado isleh waa ummado ka bacdi dhulku ama juqraafigu ama diintu ay wax kala qaybiyeen waana ummado weligee dil iyo haraj iyo mushkilad iyo ku dhex jiray waa isdilayaan halkaan ay soo degayaan kooxdaan ay qaxinayaan ayagaa meesha qabsanaya ayagaa la eryaya ummad saa ku jiri jirta wey haddaan u nimaadno marka qabiilka sharmaarkow inta aan wax baarayay aniga waxaan ku qancay aadan isha ugu hayay magacan qabiilada soomaalidu wax sal ah oo isku taagan yihiin ma jirto haddii wax sax yihiin waa inta yare dhow ee 10 iyo wixii ka dambeeya waa tusaalayaalna waa ka bixinayaa tusaalayaasha aan ka bixinaya waxaa weeye horta kow wax af lagu sido oo aan cidina qorin inta ay jiri karaan ayagoo saxa waa waqti xadadan waa taas waa tusaalaha kale wuxuu yahay adduunyadan abtiris marka la yiraahdo abtiris la ilaaliyo waxa ugu sharaf badnaa abtiriska nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam waxaa la isku raacsan yahay 20 oday in la garanayo si sax loo garanayo laakiin cadnaan wixii ka dambeeya ilaa laga soo gaaray nebi ibraahim waa iska wax la hubaay kuma jiraan waa shakiya ka buuxa qaar waxay yidhaahdaan 2 iyo 5 iyo 10 odayaa ku dhex jirta lama yaqaano lama hubo qaar 4 iyo 10 qaar 9 qaar 7 waxbay sheegaan intii nebi ibraahim iyo nebi aadam u dhaxaysana dee ayadu waaba wixii laga sheegaa waaba been marka dadkii xadaaradda nooga horreeyey ilbaxnimada nooga horreeyey unbaa taariikhahoodii lumiyey abtiriska annagu marka taanada inaan xafidno waa oon afku xafidno weliba waa wax xaqiiqada aad uga fog wey waa tusaale kale tusaalaha aan ku soo darayo kale wuxuu yahay marka aad soomaalida fiiriso ee aad qabiilooyinka waxaad arkaysaa kuwa oday magaci wata waxaadna arkaysaa kuwa deegaan magaciis wata waxaad arkaysaa reer shabeelle waxaad arkaysaa reer goleed waxaad arkaysaa waxa la yidhaha shangamaas waxaad arkaysaa waxa la yidhaha raxan weyn waxaasoo dhan waa isbahaysiya waa ma jiraan wax diidaya sharmaarkow haddii 100 sano oo hadda ka bacdi qofka nool inuu 4.5ka hadda jira inay qabiil noqon doonaan wax diidaa ma jiraan waxaan kaloo anigani personal waxaan garanayaa qaar aan qaraabanahay oo inta guuray inta qabiilka ka xanaaqay oo guuray qabiil kale u galeen weli waa la joogaa xaggee ku abtirsadaan waxay ku leeyihiin dhaqanna xaggaanahay dhiigna xaggaana 2 generation kadib cunugaas halkaas hadda joogaahe dee qabiilkaasuu toos u yahay wax u diidayaana ma jiraan waxaan kaloo garanaynaa qabiilka raxanweynka la yidhaahdo waa ummad waa collation waa ummad isbahaysi isu tagay waa ayaga aaminsan mid aan asagana qaraabanaho berdhex ii sheekaynaya wuxuu ugu yidhi ayaan dhawaadan waxaan u malaynayaa inay ahayd 2015kii haddaan ku baarno 3 ku biirnay oo raxan weyn 3 neef oo geel aan qalnay saas uga midna qaraabada waa xagga ugu weyn isbahaysigii galeen qabiil baa jira oo reer hebel la yiraaho xagga degan oo annagu ka kaalay waxaasoo dhan hadda 2024 hadda last month maxaa dhacayay qabiil habar gidir la yiraahdo kamida yacni qabiil habar gidira ayaa wuxuu ku biiray qabiil kale oo reer hargeysa oo reer somaliland ay isku biireen oo walaalo noqdeen walaalahana waa kala lunsanayn macnaha ma laf ka mid ah habar gidir mise habar gidir may laf habar gidir ka mid ah waxay ku biireen aan toos u dhahno qabiil saleedaan la yidhaa oo habar gidirta ka mid ah
iyo waxaa isku biiray kuwa la yidhaha arab waa wada dhalanay dhaheen waa wada dhalanay dhaheen aabbaheen halkaanu ku wada duugan yahay shalay ma aysan jirin walaalana ma ahayn maanta walaalo waa waxaad arkaysaa reer somalilan dad ka mid ah oo dhahaya annaga oromaana oromey annaga walaalaana marka sal qabiilka lagu sheegaa soomaalidu waxaad arkaysaa warsangeli qabiilo la yidhaaha jira xaggaa iyo boosaasana waa ka jiraan xamarna waa ka jiraan waxaa lagu leeyahay waa wada dhasheen reer hebel marka midna waa hawiye waana wada dhasheen maxaa dee hadda waa ujeeda hawiye iyo isaaqaaba isu yimid ba hadda oo haddana oo taariikhdooda hadda usbuucyo kasoo hawiye isaaq soomaali sooma naqanayaan taariikhdaas marka soomaalida dhexdeeda socota marka la fiiriyo odayaal ay u baahanaysaa aniga samaalahoodaas iyo irirkoodaas iyo waxoodaas waa wax kale laakiin kuwan waxay leeyihiin ma arabkiiya habargidir noqday mase saleebaankiiba arab noqday mid ay noqotayba midaa mid noqday marka ma jiraan qabiilkan soomaalida wax caddaynaya in uu ilaa xadkaas uu tixan yahay ma jiraan waa lagu aakhira sheegayaa mooyaane marka dadku inay ku ekaadaan inay ama isbahaysi soomaaliyeed noqdaan ama ay muslimiin noqdaan wax u dhaamahay ma jiraan waaya waxaan kaaga mahad celinayaa saa u kala dhigtay oo wax badan ugu iftiimisay su-aashii waxaan aadayaa marka su-aasha labaad inta badan waxaan maqlaa madaxda soomaalida oo dhahaya walaalaheen etoobiya iyo shacabka soomaaliyeed oo isku khilaafsan oo dhaha etoobiya walaalaanahay iyo manihi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo soomaaliya iyo etoobiya ama etoobiyaanka iyo soomaalida horta iyaga walaala miya saaxiib haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adiga oo keliya ayaa guusheena ka dhiman follow dheh ama subscribe pagekeena mahadsanid